Okay. Waynu ku socon doonaa insha Allah waxaynu u gudbi doonaa qaybteena multi-term framiska iyo sida suuqa la isku waafajiyo. Hadda waxaynu ka hadalnay uptrend iyo downtrend. Waxaynu ka hadalnay uptrend iyo downtrend iyo sida ay u samaysmaan. Anytime frame kasta joogtaana waa sidaas. Laakiin waxaa mararka qaar dhici doonta suuqaaga 4 hour iyo 15 minute ay kala duwan yihiin oo 4 hour kaaga uptrend sheegayo 15 minute kaaga ama 1 hour kaagana downtrend sheegayo. Sida suuqaas kale la isku waafajin karayo waa simple. waxaynu leenahay waxaynu tegaynaa lacag ayaynu soo qabsan doonaa aynu sheergarayna wax loo yaqaano trailing viewgeena any beer baynu soo qabsan doonaa okay 1 minute baan hadda joogaa time weyn aan tago 4 hour aan tago okay markaan 4 hour tago replay murkan aan iska saaro okay tusaale ah si fiican baa la arkayaa marka layaa shaashadeeda loo arkayaa midkan dab khiira gelinaya 1 minute okay sida caadiga ah hadda suuqeenaas waa maxay suuqeenaasi dhan uu jeedo ma garan karayno just waxaynu arkaynaa inuu suuqeenu dee baa yahay oo kor u socdo waa arki karaynaa laakiin waxaynu hubin karaynaa ama xaqiijin karayna maaha marka hal mid baa keena horreysiinaya ama hal qodob baa keena horreysiinaya oo arrin xaggii hore ka dhigo oo ah isagu ka baxsan suuqa arday badan waxaa jirta marka suuqa analyze garaynaya saa runtii ka dhiga dad aragto qof suuqa saa ka dhigay qofka wixiisa madow badan baa ku jira ya structure-kaagaas sheekh sax maaha wax badan baa ka khaldan weliga sababtoo ah waxa gebigoodiiba xalaal iftibaal la qashaabaa la yidhahdaa dee wixiiba xanjaad ka dhigtay qolyaha structure-ka trade link isticmaala saa yidhaa inta badan marka suuqaagu waa inuu san kugu ballaadhnaado waa in suuqaaga la kala garan karo aadna maaha inuu san waaweynaado laakiin waa in la kala garan karayo candleliska buyga iyo selleriska waa in la kala garan karayo meesha aad wax saaratay iyo meesha aanad waxba saaran waa inaad kala garan karayso haddii laakiin wixii aad saa ka dhigto sheekh maxaad lama garan karayo wax adale waxaad ka sheekeynaysaa haddii shaashaddu kugu yartahayna maxaad samayn kartaa shaashadda yara khiyaano waxaad samaysaa trade viewgaaga laftigiisa raydkiisa sare tag meeshaan calaamadii ma ujeeda halkaa sare in calaamadii saddex dhibcood yara ku dhufo kadibna waxaad samaysaa meesha markastoy plus ay saa kuu tahay boqol buu kuu yahay shaashadda way kugu soo yaraanaysaa ay taa way yara fool xumaanaysaa minus 75 to 76 kiisu shaashadii way soo yaraanaysaa halkan oo kale haddii sanoo kale kaa tahay lacagaha sanoo kale iska yara durkii kadibna shaashadaadi way yara weynaanaysaa way yara xoogaa way yara leekaanaysaa halkan hoose hadday hoosoo kale sanoo kale kaasoo tahay hoos iskaga deji simple waa basic trade view wixii la isticmaali jiray marka waa kaasa marka hadda 4 hour marka aan joogo waxaan doonayaa suuqaygan inaan analyze gareeyo simply marka hadda meel ka mida meel baynu qabsan doonaa hadda suuqeenna waxaa horena kuma noqon doono meel baynu ka jari doonaa waxaanu ka jari doonaa simply halkaas kalaan ka jari doonaa suuqa waxaan ka jari doonaa meeshaas kalaan ka jari doonaa okay hadda markaan meeshaa jaro suuqeenaas inuu downtrend u socdo ma shaki bay nagaga jiraa waa maya suuqaygan muxuu samaysanaya lower high intaa waynu isla garanay oo suuqeenu inuu downtrend u soconayana waynu isla garanay labadii calaamadood ama labadii meelood u dambeeyaan cabirto hadda meeshaas aad arkaysaa candle baa ku hoos xidhmay soo meeshaas waxay ahayd break of structure buu suuqaas hore uga samaystay halkanna muxuu ka samaystay lower low buu ka samaystay simply inta la isku haysta ama meeshu ay dhibka ka jirto laba waa meesha markaad hadda bullback cabiranayso ama aad bullbacktii sawiranayso bullbacktaadii walaal okay bullbacktaadii ma meeshan baa oo halkaa marka la jibiyo suuqa uu change of character samaystay mise marka uu meeshaa jibiyo mise marka uu meeshaa jibiyo in reality halkaa sare marka uu jibiyo oo keliya ayuu suuqaagaas change of character samaysan karaya sababtoo ah meeshaasi waa meesha uu ka soo bilaabmay structure-kaagu ee kuwan uu soo bilaabmay wuu noqday ma jebin maalinka uu jebiyumaad kan impulsive u aqoonsan karaysa uu isku noqnoqdo marka hadda waa kaasa halkaana saagu dhiga laynkayga labadaasuu suuqu u dhexeeya baan leeyahay okay hadda marka waxaan fiirinayaa bal meesha uu suuqu aado suuqeeni baynu sii deynaynaa okay bay buu soo noqday okay waxaan dhan wuu soo qaatay meeshan dhan wuu ka soo qaatay yes hadda halkaas marka uu kandhalsaa aniga igu jebiyo maalinka uu hal kandhalsaa meesha igu jebiyo ee rejectionkayga aan saartay hal kandhal ku dul xidhmo waa breaker identificationka aynu kasoo hadlayne waxa aan aqoonsanayaa suuqaygaas inuu doonayo inuu bay u soo kala wareego weli ma kala wareegin laakiin sharcigii koowaad ee joogga waan hayaa waan u diyaar garoobaya okay maxaan kaliya sugayaa
hadda inuu bullback soo samaysto si aan bullback 4 hour u helo meeday waa tan soo noqotay bullbacktii waa tan hadda mar intaa baaday soo dhacday waa maxay is a bullback laakiin bullbacktaas halkay ka noqon doonta iyaduna waa mid loo baahan yahay okay waxaan cabiranayaa haddaan leeyahay hadda waxaan leeyahay kan waan ka guurayaa oo meeshaas maxay noqotay iyadu boss ma aha iyadu waxay noqonaysaa break of structure waxay noqonaysaa change of character bay isku rogaysaa oo 4 hour change of character markaas maxay noqonaysaa this one ama halkiisaa sare maxay noqonaysaa halkiisaa sare waxay noqonaysaa higher highgaasi waa higher high ay noqon doontaa ama 4 hour higher high okay 4 hour highga in la jabiyo ayaan sugayaa weli lama jabin yes hadda la jabiyey mar haddii saa looga dhex baxay meeshaas waa la jabiyey ama break of structure ayay noqon doontaa halkaas mar haddii la jabiyey halkeedan hoose maxaad u aqoonsanaysaa higher low baad u aqoonsanaysaa waxaad u aqoonsanaysaa 4 hour higher low hadda halkaa ma sii odhan karaa higher high maya walaal ma sii odhan karo sababtaan aan u sii odhan karin waxa weeyaan dee waad odhan kartaa laakiin meel uu istaagay ma garan kartid suuqu miyuu istaagay mise weli ma istaagin ma sii garan kartid hadduu soo noqday xitaa waxaad sii cabiran karaysaa ama sii fiirin karaysaa simply bal aynu ku eegna fibkeenii from here to here halkaas ha u saaro watankaaga hoose ha u saaro halkeenii sarena san u saaro simply waxaad arkaysaa 1.27 keenii marka uu gaadho soo noqday okay mar kale aynu fiirino haddana muxuu samaystay higher high intan dhaxay intani bullback ma tahay 4 hour marka la joogo yes waa 95 maadaama 95 tahay dee bullback bay walaal kuu tahay miyaad odhan karin meeshaasina waa higher high halkanna waa maxay waa higher low yes waad odhan kartaa maya maadaama kandhalna ku dul furmay oo ku dul xurmay okay markaa maxaad filaysaa bullback inay soo noqon doonto bullbackta kale soo noqon doontana aynu fiirino okay ha xidhanto mar haddii laba kandhal xidhmeen iyo cabir waa imisa waa 55 bib 55 bib ma odhan karo waa bullback ina 4 hour yes hadday soo gaadho waan odhan karaa sorry hadda markii saa u soo noqotay meesha waxaan odhan karaa waa bullback laakiin bullbacktiidaasi ma halkan bay jebin doontaa mise way ka noqon doontaa haddii halkaa jebiso suuqaas uu kala wareegay down trend baan anigu aadi doonaa haddii laakiin ixtiraamto waa halkeeda yes way ixtiraamtay mar haddii ixtiraamtay waa sidaynu doonayne waxaynu leenahay meesheenaas waa maxay waa higher high ama waa higher highgii aynu doonay in la jebiyo trendigeenu halkuu gaari karayaa fibkeenna aynu ku eegno kan baan sii sawirtay kanna waan saartay meesha uu gaadho aynu fiirino okay weli lama jebin yes haddaa la jebiyey ama fiirino meesha dad u fiirsato okay kan buriga aan saarto okay kan kale dhankiisan kalena buriga aan saarto mar haddaad qayb buriga saarto qaybta kalena waa buriga saarto labadaas inta badan labadaasu ka noqdaa waa body to body iyo week to week waxaad leedahay 1.27 keen horta waa la soo gaadhay markaa isaga iga saar laakiin aan iska saxo kan meesha aan saaranayo kan selka ma saaranayo baygii u dambeeyey ama bayga wiigga ugu dheerla ayaan saaranaya waa kaasa ujeedaa bayga aan saaranaya walme bayga aan saaranaya waa kan bayga aan saaranaya waa kana wiiggaasaan saartay wiiggaa markaan saartay halkaa ku calaamadiyey waxaan fiirinayaa in dhankan markaan u jiido la jebiyey kandhal ma jebiyey mise muu jebin kandhal ma jebiyey mise muu jebin bal inta arday ee arkaysa inuu kandhal jebiyey wan hay soo qortay inta u arkaysa inaysan meeshaa la jebinna fuutui soo qora okay 22 haye imise ardayo kala arkaya inaan meeshaa la jebin imise arday u arkaya 1122 okay imise arkaya meeshaa la jebiyey 11 okay it's good waxaa saxan ardayda 11 ka soo qoraysaa saxan sababtoo ah meesheenna waxaa jebiyey kandhalkii u dambeeyey rejectionkiisu bayg ahaa ama bayg waa kana wiiggii waanigaa saartay dee kandhal baa ku dul furmay kandhalkaasi waa berigii wuu jebiyey laakiin kaama xisaabsanaye kandhalka yaree meesha ku jira ma ujeedaa kaasaa jebiyey waa only hal kandhal waa markan oo kale waa marka ay ku anfacayso break identificationku sida mararka qaar dee mararka qaarna meeshaadi maxaa jebinaya mararka qaarna waxa halkan oo kale ahaydoo dee meeshii uusan mugdiba kaa gelin sidoo kale looga dhaqaaqo kaleer looga dhaqaaqay laakiin markan oo kale meeshii waxaa jira mugdiga maxaa kaa saaraya waxaa kaa saaraya kandhalkaa yaroo kale iyo wax lamida dee meeshii hadda kandhalkaa yar baa jebiyey mar hadduu kaasi jebiyey xaq waxaad u leedahay inaad tidhaahdo halkaygaasi walaal waa maxay halkaasi waa higher high sheekhow waa kow halkanna waa maxay waa higher low suuqaagu labadaas u dhexeeya fursadaada bayga labadaa saas hadda ku dhisaysa trade-kaaga maxaad ku dhisaysaa meelahaas ku dhisaysaa haddii meeshan aad chance ka hesho oo confirmationiski laga helo we gonna buy waa buy garaynayna haddaynu ka weyno dibadaynu ka joogaynaa bal hadda aynu fiirino meesha uu qabtay isaguna okay uu soo noqday yes
muxuu sameeyey isaga laftarkiisiiba halkan maadaama meeshiisan yar markii hore kii jebiyey uu kan ahaa oo de meeshan uu kanilku jebiyey markaynu kasoo update garaynay waa kana markaasuu markii hore yaalay kanilku meeshaasu yaalay muxuu sameeyey waa kana hayr hay buu samaystay isagii baa jebiyey isagana cabir markaan isaga saa u cabiro ma yahay 4 hour bullback 4 hour bullback meeshaa ma u aqoonsan karaya meesha 4 hour bullback ma u aqoonsan karaya hal arday baa may soo qoray okay may uma aqoonsan karayo sababtoo ah waa inay ka badan tahay 60 bib maadaama aysan 4 hour ahayn waa 1 hour oo kale bullback bay kaaga noqon doontaa laakiin 4 hour kaagama aha 4 hour suuqaagu mee 4 hour suuqaagu meeshiisii aad u diisanaysa bullbacktaadu sheekh meeshiisii bay ku oolaysaa halkii markii hore ay ku taallay ay ku oolaysaa wax abdayda kuma soo samaynaysa suuqaagu mee haayar haygiis waa kan waxaan hadda socdaana weli meel muu istaagay marka kan halkan iska dhig meha istaagay yes waa kaa soo noqday waxaad arkaysaa walaal qofkii ku xisaabtamayey meesha 4 hour higher low waa la jiiraya sababtoo ah dee 4 hour higher low saxa maaha 4 hour higher low saxa sheekhow maaha aduun baa ku degdegay meeshaas waxaad leedahay waa kana higher haygii 4 hour waa kana inta u dhaxaysa chance buy waad ka degdegan kartaa sababtoo ah suuqaaga weli waa buy yes weli waa buy saynu sheeginay weli waa kaa buy ku socda mar kale maxaad leedahay meeshiisan keenso ilaa iyo maanta suuqaaga sida aad u daba wadaysaa waa sidaas ilaa iyo maanta sida aad suuqaaga u daba wadaysaa ama sidaad jaanisada uga qaadanaysaa waa kaas hadda markuu meeshaa yimaado maxaad leedahay chance baynu baaraynaa haddii aynu confirmationska laga helo yes dhexdu yimi marka uu dhexda yimaado saa u yimaado maxaad leedahay waa kaasa meeshaas kusoo noqday halku gaari karaya bal aynu cabirno 1.27 keeni 1.27 keeni waa kaasa yes afuu saaray aan boriyada ku saxo because waxaad arkaysaa haddii aad meeshan u fiirsato kuu soo dhaweeyo buriga ma saarna wiiguu saaran yahay ma ujeedaa aan buriga saara markaas aan buriyada saaro kan burigiisa saar kan kalena burigiisa saar buri to buri clearly hadda meesha ma ujeedaa buri to buri markaan saara maxaa dhacaya kana burigiisa si sax u saaray kana burigiisa sax u saaray dadkii bartan ka soo raacay TP-goodii 1.27 ku qaadanayaan waa dadkii sida saxda ula socday qofka kalena wuu iska filanaya 800 bib ku leeyahay suuqu iska soconaya yaa kuu sheegay sheekh in suuqu 800 bib soconayo okay marka simberi waa kaasa so uu suuqu structure-kiisu u shaqeeya waa saa haddaba waxaan doonayaa inaynu ku dhex darno isla waafajinteennii halkaa ku dhex darno oo suuqeennu bullbacktaadani walaal marka ay dhammaanaysa maxaa lagu garanaya haddaan ka saaro waxaan ku jira dhammaantood remove aan idhaahdo suuqeenna waxaan hadda samaysmaya maxaynu ku garanaa inagu hadda markaynu leenahay meeshani waa higher low garana waa 4 hourkii dee waxa 4 hour ka hooseeya waa 1 hour 1 hour marka aad tagto suuqaagu marka uu tusaale ahaan sidan samaysanayey okay halkan tagaa simberiyalkan oo kale suuqaaga hadda markuu kani ku ahaa 4 hourkaagii impulsive ku ahaa impulsivekaagii 4 hourkaa wuu furfurmi doonaa 4 hourkii 1 hour markaad tagto slides isaga laftarkiisaba up trade down trade sii samaysanaya bullbacktiida laftarkeediba down trade up trade sii samaysanaysa marka wuxuu ka dhigan yahay suuqaagii sidan oo kale ah higher high higher low higher high higher low higher high waa 4 hour haddii 4 hourkaaga aad la tagto timeka ka hooseeya oo 1 hour oo kale ah muxuu noqonayaa meeshan baa noqonaysa sidan oo kale u noqonaya mar kastana laakiin maaha mararka qaar weeyaan 1 hour haddaad la tagto saasuu nasii noqonaya 15 minute la sii tagto trendi kalaa sii dhex gelaya marka adigu just waxaad iska fiirisaa ama aad ogaataa sharcigaa hal mid baa kuu fududaynaya ama iswaafajinta hal qodob oo aad iyo aad kuugu fududaynaya jira halka qodob aad kuugu fududaynaya waxa weeyaan waxaan oo dhan iska saar suuqaaga soo wax badan maad maqal iyadoo la leeyahay lefti fiiri ama suuqu wuxuu bidix ka samaysto midig ka samaysta iyadoo la leeyahay soo inta ku jirta ama kaliya sirta ku jirta waxa weeyaan suuqaagu markuu hadda sidan samaysanayo waaba uptrend ba impulsive correction impulsive sooma maxaynu filaynaa suuqa waxaynu doonaynaa inuu meelahan oo kale yimaado inuu bay uga galnaba waa tusaale inuu meesha toos bay uga galno aynu doonaynaa oo suuqaagu meeshaas oo kale ayuu ka noqonayaa oo sida caadiga meeshaas waxay tahay waa meeshii la doonayay inuu ka noqdo bullbackta soo noqon doontaa waxay soo samaysatay low lower high lower low lower high lower low lower high lower low lower high lower low bullbacktaasi hadda wax macnaa oo ay suuqa ka leedahay haba yaraatay ma jirto wax macnaa leh oo ay trendigaasi ka leeyahay ma jirto sababtu maxay tahay sababtu waxay tahay
trendigu laba rule buu trendi ku noqdaa baynu sheegnay labada rule trendi ku noqdaa mid waa kan uu samaysanayo waa lower lowgan uu samaysanayo ama break of structure kan uu samaysanayo iyo qodob labaad oo ah hadda inuu joog soo samaysto haddiiba laftigani move keliya yahay oo wax jooga oo haba yaraatee meeshan ka soo dhacay aysan jirin waa maxay qiimaha uu leeyahay trendigan waa nothing waa waxba male trendigan si uu qiimo u yeesho oo 4 hour marka aad ka soo degto haddii 50 minute aad joogto 50 minute pullbacktan aad u sugto change of character inay samaysato oo aad kor ugu sii raacdo waa inuu marka hore isagu joog soo samaysto intaasi ma caddahay intaasi ma caddahay waxaad xisaabsanaysaa marka uu marka hore isagu soo samaystay joog ama marka hore uu isagu qiimo soo samaystay tusaale aynu fiirino hadda waxaan tegayaa tusaale ahaan okay waxaan tegayaa aan ka saaro lacagteena meedahay si lacagteena ay soo qabsan waa tana waa GBP USD waxaan tegaynaa bal meesha ay hadda marayso okay si meel sax u jarno dhammaan huwiisko dhan aynu heli karnaa doonaynaa okay hadda meeshan kale u fiiri hadda waxaan jarayaa Simberi iyadana kale okay Simberi meeshan kale aan jarayaa suuqaygan halkan oo kale ayaan ka jaray in 4 hour aan tago okay 4 hour waa suuqaygani waa maxay 4 hour suuqaygani waa maxay 4 hour suuqaygani waa up trace caadiga markiisa hore muxuu sameeyay up trend higher low meel ay isla garan karayna meeshaas ka soo bilaabeynaa markaas waa maxay waa break of structure ama higher high bay ahayd then higher lowgiisa halkan oo soo ahaa halkaas waa maxay waa higher high ku soo xigay halkan waa maxay waa higher lowgii suuqa bayga saaro bayga ma saaranaya kadibna waxaan u jiidayaa saasaan u jiidayaa okay si hadda markaan u jiido meesha waxa ku jira bulbaagiyo kaasi ma noqon karayo 4 hour bulbaag laakiin 1 hour kale uu ka noqon karayo laakiin 4 hour kama noqonayo Simberi halkan maxay noqonaysaa 4 hour higher high ama higher low bay ahayd 4 hour higher lowgeeni maxaa ku dhacay shock baa ku dhacay in meesha uga jeedno waxa ku dhacay shock ayaa ku dhacay maadaama 4 hour kaagi shock ku dhacay suuqaagi muxuu isku kala wareegi rabaa macnaheedu suuqeeni de down trend ayaa bilaabmaya down trend ayaa meesha ka bilaabmaya suuqaagi maadaama meesha down trend uu kala wareegay oo ruulkii kubada down trendnimada aad hayso waxaan doonayaa suuqaygaas inaan bullbacktiisan la socdo la socdaan rabaa sababtoo anigu bullbacktan ma garan karo waxaan dham hadda waa impulsive soo maa ilo impulsive beta kama soo bilaabana impulsive waxaan dham waa impulsive kaygaasi ma halkan buu ka noqonayaa ma meeshaas buu ka noqonayaa ma halkan buu ka noqonayaa miyuuba jabin doonaa maxaan ku garanayaa waa inaan isagii lower time frame la tagaa timeka ka hooseyaan tigiya markaas 1 hour baan 1 hour hadda markaan imaado suuqayga muxuu samaysanayaa 1 hour suuqayga waa down trend kan leedahay sababtoo ah kan waa 4 hour ka meeshii soo jibisay oo halkaas saray runtii noqonaysa waxaan week bay marka hore ahaayeen okay laakiin 1 hour suuqaygu walaal goor ka horeysu soo kala wareegay oo 1 hour suuqaygu halkan buu ka soo kala wareegay already oo hadda meeshan cabirato dad meeshan hadda u fiirsato meeshan kale waa 60 bib bay noqonaysaa laakiin de 60 bib waa 1 hour marka aad tagto 4 hour waxay ka noqonaysaa correction waa 1 hour ku 1 hour waxaan leeyahay 1 hour suuqa wuxuu joog ka soo samaystay meeshan sababtoo ah 1 hour joog wuxuu ka horeeyaa 4 hour joog uu ka horeeyaa marka maxaa ka soo dhacay waa higher low for 1 hour ay ahayd so 1 hour higher low aan ku qorano 1 hour higher low ay ahayd waxay isku bedeshay joog oo 1 hour higher low isku bedeshay maxay joog isku bedeshay Simberi maxaa bilaabmay 1 hour down trend oo 1 hour suuqa muxuu sameysanayaa walaal lower low halkan waa maxay waa lower highgiisii kan waa maxay waa lower lowgii inta ma haysaa marka waxaan ku qorayaa 1 hour lower high okay halkan waxaan ku qorayaa 1 hour lower low sorry lower low ka dhig markaas su'aal baa ka weydiinaya markaas markan waa iyadu waa break of structure waxba iyadu kala duwana waa BOS okay intaas suuqaagu markuu hadda samaysanayo su'aasha adiga ku weydiinaya waxa weeyaan down trend kan 1 hour ka ee soconaya waa maxay
down trainkan 1 hour-ka ee soconaya waa maxay bal ii soo qor qoraalkaas chatka zoomka absolutely ayaan la ismaaciil ninkaas fasaxan waxani soconaya waa impulsive-kii 4 hour-ka sababtoo ah dee impulsive-kii 4 hour-ku wuxuu soo jibiyey joog buu soo samaysay isaga laftarkiisa markii hore wuxuu ahaa intuusan halkan jibin intuusan joogga 4 hour-ka samaysan oo haddaan 4 hour hadda kuugu noqdo haddaan 4 hour kuugu noqdo oo 4 hour kuu tago before uusan suuqaagu joogga 4 hour-ka meeshan uusan ka samaysan oo uusan kandharku ku hoos xidhmin kan impulsive-kii 4 hour ku ahaa kana correctionkii wuxuu ahaa 4 hour-ka laakiin correctionkaagii 4 hour-ku already hadda joog buu sameeyeyba mar hadduu joog sameeyey dee impulsive buu 4 hour-nimadii isku bedelaya marka down trainkani hadda waxa uu ku dhex jiraa bullbacktii ama impulsive-kii buu ku dhex jira hadda sidaa saxda ah laakiin markii hore bullback bay ahayd imika laakiin maxay isku bedeshay impulsive bay isku bedeshay waxaan ku noqonayaa 1 hour-kayga ma ku noqonaya 1 hour imika markaan imaado hadda suuqaygu wixii kaloo dhan iska ilow wixii kaloo dhan waan ilaabaya labadan bay hadda aniga aragtideeda u dhaxaysa labadan ayaa aragtida u dhaxaysa ilaa hadduu suuqa halkan soo dhaafo dee suuqaaga 1 hour joog buu soo samaystayba marka 1 hour buu up train ka yahay hadda si aan trade u qaato ama si aan hadda fursad sare u qaato waxa aan leeyahay suuqaygu waa inaan bullbacktiisa yar la xisaabtamaa ma ujeedaa buga soo noqoto bullbackta soo noqoto waa inaan la xisaabtamo si aan ula xisaabtamo hadda haddaan ku dhahdo ka waran aan ku dhahdo waxaan sugayaa 1 hour joog dee si aan u daawanayaa suuqu daadanaya sababtoo ah 1 hour meeshan kama suuragal aha trendy 1 hour inuu kuu sababta isagii baa 1 houraba isagii baa 1 hour impulsive waxana waa 1 hour-kii marka waa ina timeka ka hooseeya tagaa ilaa 4 hour-kii baan iga soo jibiyey maxaan tegayaa 15 minutes meeshaan u socdaa markaa waa tana meeshaan haddaba u socdaa waa tana 15 minutes haddaba meeshani qiimo ma leedahay mise ma leh meesha maxaa ka soconaya high higher low higher high higher low higher high qiimo ma leedahay inay qiimo leedahay iyo inaysan lahayn waxa ay kuu sheegaya ama waxa qiimo kuu samaynaya inaad yada akhrido wixii ka horreeyey oh sorry aan ka saaro waxaan kaa tirtiro waxa kuu sheegaya walaal inaad iska eegto war 15 minute bullbacktaadii ma soo samaysatay joog yes way soo samaysatay jooggani mid saxa ma yahay iska cabir waa 9 bib dee 9 bib ma noqdaan 15 minute joog 15 minute change of character oo maya ma noqdaan maadaamaysan 15 minute noqon dee walaal ma odhan karaysid halkana kii ka horreeyna me halkii ugu horreysay ka horreysana waa kana kii ka horreeyna kan buu ahaayo wax structure waxaan dhan baa meesha soo wada jibiyey dhaqaaqan dhan baa soo jibiyey marka 15 minute hadda qiimo kama leh hadda 15 minute joog meesha kama sugayo hadda haddaan ku dhaha 15 minute joog baan bartaa ka sugaya oo saa suuqa u daawanaya suuqa iska daata ka waran waa qalad maxaan tegayaa lower timeka ka hooseeya 5 minute baan tegayaa 5 minute markaan tago waa kana hadduu qiimeeyo sameeya macnayo sameeya 5 minute isaga mar hadduu sagaal gaadhay wax lamida waa okay waa kana markuu 5 minute joogiisu ii soo dhaco ayuu qiimeeyo sameeyaa lower highgiisaan soo cabiranaya waa kana markaasi waa maxay waa 5 minute meeshii u dambeysay ama structure-kiisii u dambeeyey simple waa kana hadduu higher high sii samaystanayso okay it's good muxuu sii samaystay higher high buu sii samaystay oo halkaasuu jebiyey mar hadduu jebiyey me isla meeshii buu li taagan yahay aan ku qoro weliba 5 minute ama 5 waan iskaga qoro bas muhiim maaha okay waa kana isaga hadda markuu soo jebiyo yes hadduu higher high la kala sii samaystana it's okay inuu sii samaystay higher high kale sii samaystay aan boodsiino hal mar sii dayno okay simply hadduu haygaagaa sare sii jebiyana isaga muhiimaddu waxa weeyaan waa inuusan ka dhex bixin haygaagaa sare ilaa haddii haygaagii halkaas la soo jebiyo u fiirso haddii walaal haygaagan la soo jebiyo haddii haygaagaa la dhaafo haygeenaa sare haddii lasoo dhaafo sheekh dee wixeenni sheekadeenna waa ka kac sababtoo ah 1 hour-keenni baa kala wareegayba haddii haygaagaa sare lasii soo dhaafo 1 hour-kaagii wuu kala wareegay marka 5 minute-kaygaan kusoo noqdo 5 minute-kaygaan kusoo noqdo sana soo dhaweyso okay me update soo qaad kan waa kan haddana kan baa u ahaa hadda kaasaa ka u dambeeya ka u dambeeya inoo ah waa kaas simple kaasaa inoo ah rejection baa jebiyey laakiin rejectionka waxaynu sheegnay inaynaan xisaabin ama rejectionku uusan qiimo inoo samayn aan sii daayo yes hadda muxuu sameeyey hadda walaal markuu sidaa u sameeyo
hadda 5 minute joog markuu saa u dhaco 5 minute joog saa marka uu dhaco tradekaagii 1 hour-ka ahaa ee down trendka ahaa waa diyaar tradekaagii meesha 1 hour-ka ahaa ee down trendka loo sii raacayay sheekhow waa diyaar laakiin waxaan jooga dhacayo waxaan miyaad ka arki karaysaa 1 hour waa maya 1 hour waa rejection is waxbaa iska samaysmaya 50 minute xitaa kama arki karaysa laakiin 5 minute sababtaynu uga soo aragnay 5 minute waa kaleer 5 minute maxaan leeyahay 5 minute markuu soo dhaco just tradeka bertee laga geli doonaa ma halkaas sare lagu sugi doonaa ma meeshan dhaxa lagu qaadan doonaa waa nidaam shaklo idin u baahan waqtigeeda insha Allah aynu ka hadli doono taas waa inteega ka hadli doonaa laakiin simply tradekaagu waa intaas hadda maxaa leedahay fursadda selka waad soo qaadanaysaa waxaad ka soo qaadanaysaa meesha ay ku saxan tahay simply waa kaas wixii ka dambeeya suuqa waa maxay waa inuu down trend soo samaystay simply u samaystay waa ka soo daatay ama meesha ka soo daatay haddaan hadda imaado 1 hour simply waa kaas meesha wuxuu ka soo dhacay omay bibs hal mar buu soo booday 67 bib buu soo booday marka sida uu suuq u samaysmaa ama sida uu loo sameeyo waa kaas lugtaada inaad la xisaabtanto ama aad qiimaysana waxa ay ku qiimaysmataa toogeeda yar inaad fiiriso toogeedu ma 15 minute buu ku saxan yahay ma 1 hour buu ku saxan yahay ma 5 minute mararka qaar bay 1 minute kula tegi doontaa oo waxa kaloo dhan aad isticmaalin dad baa u haysta un suuq mar kasta in 15 minute change of character la sugo lama sugo mar kastaba waxa la sugaa change of characterkaasi meesha uu qiimaha ku leeyahay tusaale ahaan lacag kale haddaan hadda tago oon hadda tusaale ahaan 4 hour lacagtan tago waxa ku jira aan naga saaro waa USD CHF trade kaasaan ka digi meel fog baynu tegi doonaa halkan oo kale tegi doonaa because suuqu inuu isku mid yahay baan ku tusaya anytime frame kasta aad joogto ama meel kasta joogto inuu isku mid yahay hadda suuqeenu haddaynu meeshan ka jarno ina 4 hour wala waa laga yaabaa inuu hadhow lower time frame ka inay diidi doono ama doono tan meelahan ka jaro suuq meeshan muxuu ka samaystay walaal suuqeenu up trend buu soo socday sida caadiga higher low halkan waxaad arkaysaa haddaan baygiisi u dambeeyey saarto saa u jiido candle baa ku dul xurmay so halkaasi marka waa high ama 4 hour high bay ahayd halkiisana hoosena 4 hour higher low ayay ahayd suuqaasi buy buu ku socday suuqaasi buy ayuu kugu socday laakiin baygiis bedel baa ku yimi waatan waa la jabiyey waa la cunay marka halkan maxay isku bedelaysaa 4 hour chok 4 hour chok halkaas sarena 4 hour haygii ayay ahayd laakiin hadda isbedel baa ku yimi oo impulsive baa kasoo bilaabmay mar hadduu impulsive kasoo bilaabmay down trend ayuu suuqaagu isku rogay maadaama waa suuqaagu down trend adiga isku soo rogay hadda adigu waxa weeye fursadaadu dee suuqaagu inuu lower loo sii samaysto soo maaha horta bullbackgiisa soo noqday yes waa ka soo noqday yes waa ka soo noqday laakiin meelahaas kale aan ka celino okay yes waa kana 4 hour bullback-taada soo noqotay in la istaajinayo in kala maxaad ku garanayso waa inaad lower time frame la tagtadeen waa inaad tidhahdaa 4 hour soo ma jooga yes maxaa ka hooseeya 1 hour 1 hour markaan hadda saa u tago simply waa kana maxaa meesha ka dhacay 1 hour joogiisi waa kaasa sorry 4 hour joogiisi waa kana trendigeenna waa kana marka haddaan hadda san usoo jiido oo halkan san u dhigto costiisa rejectionkii ugu hooseeya waa kan oon saa usoo jiido waxaad arkaysaa 1 hourkeeni rejectionkiisi inuu soo dhex galay maxaan leeyahay 15 minutes saddex time suuqa ugu muhiimsan runtii hadda saddex time barato inta kale waad ignore garan karaysaa waa 4 hour iyo 15 minute iyo 5 minute saddexaas haddii isugu ka xidhan ama saddexaas oo kaliya aad fahanto waxa kaloo dhan waad iska dhaafi karaysaa laakiin waa muhiim mar kasta inaad barato si ay tennisku isku saameynayaan 15 minute baan tegayaa 15 minute markaan tago hadda waxaan u baahanahay bullback-teena soo noqon doonta meesha lagu istaajin doono inaynu aragno okay hadda suuqeenu muxuu samaystay move impulsive buu soo booday impulsive-keena waxaynu horas u nidhi ilaa iyo halka xaq buu leeyahay inuu iska meeraysta sheekh ku degdegi ilaa halkaas iga xaq u leh marka waa ha yimaado area dhan iska meeraysto inagu just waxaynu ka sugaynaa inuu isagu joog samaysto ama uu kala wareego marka uu kala wareego kaliya xaq ugu leedahay inaad la xisaabtanto weli isagaa trend ku soconaya yes weli isagaa trend ku soconaya wakiisanimada higher low markaasa u hooseysa simply waa kana yes aan sii daayo okay yes waa kaasa hadda walaal markuu saa samaysto hadda marka intaasi dhacdo dee joog waad haysataa fursadaada asalkii inay dhaqaaqayso waad haysataa targetkaaga ama tradekaaga just maxaa kaa maqan waxaa kaa maqan inaad fahamto un tradekan markuu soo kala dhacdo halkeen laga soo raaci doonaa hadda tradekaas aniga waxay caddaatay inuusan kor usii socon karin
aan fiirino meesha uu yimaado areas ku soo noqday ama meeshii intrigu isku diyaariyey kadibna waa kan meesha yaro meeraystay aynu tagno teamwin server agno inuu dhaqaaqo aynu ku noqono hawro kale oo waxaan doonayay hore u cararo simbly waa kana meeshaas trade kasoo bilaabmaya simbly waa kaas muhiimadiisu waa maxay waa inuu jabiyo halkana maxaa muhiimadiisa kala tahay dee 1.27 kaagina waa odhan karaysaa oladii 1.27 ku meeday waa kana pullbacktan sana soo cabir year to year saa u dhigo waa kaasa tradeka meesha lagaga hadhayay meeday waa 1.27 ka haddaad sii haynaysid oo SL2 intri aad sii dabodaysina waa anada option kaloo kaaga baahan iyaduna aqoon iyo nidaam inaad ku raacdo ku sii raacdo laakiin sida loo dhisaa waa kaasa sida laysku waafajiyana runtii waa taasa waxaan rajeynaya runtii in si fiican loo fahmay insha allah intaasaynu ku joojin doonaa qeybta cashirkeenna oo cashiradeen haddaynu ku noqono qeybta sladiskeena konseptyada caawa ugu muhiimsan inaynu ka hadalna waxay ahaayeen brick identificationka oo cashirkeena hore aynu kaga hadalnay qodobkan chok iyo bios waxay ku kala duwan yihiin impulsive and correction skills waxay ku kala duwan yihiin uptrend iyo downtrend ruleskooda oo keliya adiga haddii lagu weydiiyo uptrend mise rule buu leeyahay downtrend mise rule buu leeyahayna iyo itus inta rule uu leeyahay adiga lagaa doonayo waa kaasa iswaafajintana casharkaas aynu runtii kaga hadalnay marka afartaa qodob ama shantaa qodob waa shan qodob shantaa qodob ayaa runtii ugu muhiimsanaa casharkeena insha allah intaas ugu muhiimsanayd waxaan ka jawaabi doonaa insha allah wax su'aal haddii jiraan marka wixii su'aalaha ayaan insha allah sii doonaa muudkan idinka qaadi doonaa ardaygu magaciisa ku bilaabi doonaa haddii wax su'aala uu qabo wuu weydiin doonaa insha allah ha inoo soo koobo bas ardayga casharka si hadhow ardaygu ugu ceeshan karo waa inuu koobnaado casharadana waxaan insha allah dhigi doonaa labadeena qaybood insha allah idinka soo dhigi doonaa waxaan idiin soo gelin doonaa qolkii casharada ardaydii aan qolkaasaan insha allah idiin soo gelin doonaa wax su'aali ma jiraan oo ku saabsan casharkeena caawa ibnu cumar ninka ugu qoranta gacanta taagaya okay ninkaasi muu hadlin ninkay ugu qoran tahay maslax ustaadii aad u maasanta marka hore su-aal ma qabo sharxaadaadana aad bay waa u lay maqla fiicneed soma okay thank you maslax waa soo dhow halo ma lay maqlaa si fiican ustaad ma lay maqlaa si fiican baa lagu maqlaa okay ninkaas isagaas ku mashquulsan arday kale ustaad waxaan ku weydiin rabo mataqaanaa okay ha soo dhow slaadka koowaad hal mar inaa keli ku siiso wax baan qoranayay okay isla koowaad casharkeenii koowaad ku jiray soo ma ustaad ma lay maqlaa waa lagu maqlaa walaal laakiin adaas ku mashquulsane halo okay ninkaas ma maqlayaan filaya isla kan miya السلام عليكم أستاذي koowaad kaas miya may kan ugu horeeyey okay isla koowaad kaas isla keeni xalay miya markaa may kan oo hadda zumba ku bilaabanaya koodii haa Shambi. kan may haa okay another question ardayda kale recording waan iska istaajin doonaa insha allah haddii aysan wax su-aali jirin dadkii habeenkii hore maqnaay ka waran oo caaw soo xaaday xalay taba waxba idin dhaafay xalay taba wixii idin dhaafay waxay idinku jireen wanigi casharadii idin soo duubay marka casharadii aad idin soo duubin dib u daawada insha allah habeenkii wixii ka dambeeyay ka rasaba wax su-aalo cashar ku saabsan ma jiraan